الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى في سورة القصص markuu ka soo sheekeeyay fircawn iyo kibriyaannimadiisa iyo isla weynankiisa iyo siduu ugu kadsoomay jagada iyo kursiga iyo milkiga. kadibna uu ka soo sheekeeyay qaaruun iyo isaguna siduu ugu kadsoomay xoolihiisa iyo isla weynanka iyo kibirka uu ka qaaday. markuu rabbi qisooyinka ka soo sheekeeyay tusaalayaashaana keenay kadib uu alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala: tilka ad-daaru al-aakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi al-ardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin. daarta aakharo jannada waaye, waxaan u yeelay oo loo diyaariyo ilaahay u diyaariyey cid aan dhulka dhexdiisa ama korkiisa aan doonaynin inay ku saramarto, fasaadna aan dhulka la rabin. cidhibta dambena waxaa iskale dadka ilaahay ka baqa. ayaddu waxay ku caddahay oo laga daba keenay ruuxii kursigu kadiyo ama xoolihiisu kadiso ama caafimaadkiisa iyo awooddiisa ku kadsooma oo dhulka isla weynan iyo kor isu qaadid iyo isa sarraysiin iyo kibir ama fasaad iyo qas ka shaqeeya inuusan jannada waxba ku lahayn. jannada waxaa iskale dad aan rabin isa sarraysiin, dad tawaaduca oo hoos isu dhiga oo xataa qadarkooda inay hoos isaga dhigaan jecel. dadkaasaa jannada iskale. dadka ilaahay agtiisa karaamada iyo sharafka ku leh adduunya aakharaba waay. cudurrada halista ah ee bulshadeenna haysta, ee in badanoo culimmada ka mida haysta, oo in badanoo dalabatulcilmiga ka mida haysta, oo in badanoo ducaadda ka mida haysta, iska baddaa caamada iyo dadweynaha iska baddaaye, waxaa ka mid ah inuu ruuxu jeclaado inuu caan baxo, inuu ruuxu jeclaado in la sheegsheego oo uu magaciisu kor maro, inuu ruuxu jeclaado inuu addoommada ka sara maro oo uu ka korreeyo. allah wuxuu yidhi yuriid, doonitaan waaye, doonitaanka qalbiga waaye. cudurkaasi waa cudur qarsoon, waana cudurrada halista ee ruuxa diintiisa iyo adduunkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo aakhiradiisaba baabi'iya, haddana aan lagu baraarugin waayo. ruuxa uu cudurkaasi hayo inuu ku baraarugo uma badna, astaamihiisa iyo calaamooyinkiisa inuu gartana uma badna, inuu isgartana uma badna. waana halista uu cudurkani xambaarsan yahay waay. waa isla quman yahay. asalkuna waxa weeye ruuxa muslimka ah ilaahay baa bixiya tabaaraka wa tacaala ruuxu inuu magac yeesho, inuu qiimo yeesho, in la ammaano. wax isagu uu raadiyo ruuxu ma aha, laakiin xagga ilaahay buu ka yimaadaa. waana sir qarsoon oo ilaahay uu ku bixiyo addoonkiisa qalbigiisa wuxuu ka daalacday buu ilaahay ku bixiyaa. raadin iyo doonitaan iyo isku kallifid iyo isqaadqaadid layskuma siiyo. saas daraaddeed baa xadiidkii nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam: allah hadduu addoon jeclaado jibriil buu u yeedhaa, wuxuu ku leeyahay jibriilow, hebel waan jeclahaye jeclow. jibriilna malaa'igta sare xagga sare joogtuu isaguna u dhawaaqaa: hebel ilaahay baa jeclaaday ee malaa'igay jeclaada. ayaguna way jeclaanayaan.
jacaylkii kor laga jeclaaday ayaa ilaahay dhulka ugu soo dejinayaa markaas dadka wanaagsani jeclaanayaan dariiqa lagu raadiyo wanaag lagu raadiyo ilaahay baa loo maraa laakiin adoomada lagama raadiyo istustus laguma raadiyo ismuujin laguma raadiyo doonitaan saramarid laguma raadiyo meel ku gaari maysa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ammaanay ruuxa muslimka ah si kastoo uu wanaag iyo magac u leeyahay inuu isqariyo oo qarsoonidu ay fiican tahay inaad dadkaaga ka mid tahay oo caanbixidda iyo shuhrada iyo raadinteeda waa ka digay nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam caamir ibnu sacdin baa laga warinayaa xadiidkan waxaana soo saaray muslim iyo axmed iyo kayrkood caamir wuxuu leeyahay caamir waxaa dhalay sacd ibn abi waqaas 10kii saxaabi ee nebigu jannada hal meel ugu bishaareeyey ee saxaabada nebiga ugu fadli badnaa nin ka miduu ahaa sacd ibn abi waqaas radia allahu tacaala canhu waardaa wiil uu dhalay oo cumar la yidhaahdo ayaa aabbihii u tegey sacadna wuxuu ahaa markay fitnadu bilaabatay oo dagaaladii bilowdeen saxaabadii isaga cararaya duurka galay buu ahaa baadiyaha aaday magaalooyinkaba ka baxay dardaarankii nebiga isagoo qaadanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh wiilkiisii baa ka daba tegey cumar aabbihii buu ugu tegey baadiyaha isagoo adhi ku dhaqanay markaasuu wuxuu yidhi aabe intuusan u tegin sacad markuu arkay wiilkiisiioo soo socda oo gaadiid saaran ayaa wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada araakib ilaahay waxaan magan uga ahay kaa soo socday gaadiidka saaran sharka uu xambaarsan yahan allow magankaaga ah wiilkii waa yimid aabbihii markuu la kulmo soo degay wuxuu ku yidhi aabbo meeshanaad reebaadiye noqotay ood xayn adhiga ku raacanaysaa dadkiina magaaladii madiina ayaa kursigii iyo jagadii iyo milkigii laysku haystaa adigana meeshanaad soo aaday see wax kaa yahay maad milkiga iyo kursiga wax ka qaybsatid ood muxuu ahaayey hawshan ka qaybgashid maxaa duurka ku keenay sacad wiilkiisa cumar intuu laabta ka dharbaaxay ayaa wuxuu ku yidhi aamus buu ku yidhi shibdhe waxaan maqlay nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam oo dhahaya alla casa wajalla wuxuu jecel yahay addoonka ka baqa haniga ohoo qanacsan khafiga ohoo qarsoon aan muuqanin aan caan baxsanayn aan raadinin aan kor isu qaadin addoonkaa dadkiisa ka mid ee iska qarsoon buu ilaahay jecel yahay ku darsaday inuu allihiisana ka baqo tabaaraka wa tacaala talabaadna wixii ilaahay siiyey inuu ku qanacsan yaho qina nafsi naftiisu qanacsan tahay nebi maxamed oo sidaa le baan maqlay buuri sidaas daraaddeed intaan kursi raadin lahaa oo ku caanbixi lahaa magaalada inaan duurkaygaa galo oo lay garan waayo ayaa ii dhaantee kacay dhaaf buu ku yidhi ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alghaniya alkhafiya khumuul dadkaagaa inaad ka mid tahay laakiin qalbigaaga ilaahay ogsoo yahay akhlaaqdaadu wanaagsan tahay waajibaadkaaga gudanayso xumaanta ilaahay kaa reebay ka fogaanayso dadkaagaana aan lagaa garanaynin maxaa ka fiican maxay ku tari haddii lagu sheego maxay kugu soo kordhin haddii lagu ammaano maxay kugu soo kordhin haddaad dadka ka saramarto ama iska sarraysiiso maxay soo kordhin laa shay waxba kugu soo kordhin mayso dadkii wanaagsanaa saxaabadii nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam taabiciintii ardadooda ahaa salafkii iyo quruuntii ilaahay ammaanay dhaqanka wanaagsanay raadin jireen wuxuu ahaa inuu ruuxu isqariyo oo inay dantu kallifto mooyaane uusan ismuujinin raadininna inuu ismuujiyo qisada fii saxiixi muslim ku timid nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam cumar ibnu khadaab wuxuu ku yidhi cumarow
ciidamada gurmadka ee Yaman ka imaan doona waxa kamid ah nin la yiraahdo Uways ibn Aamir ninkaasi saxaabi ma aha nabi maxamedna muusa la kulmay umarna la fadli ma aha saxaabada nabiga sallallahu nin kamida uu gaari karana ma jiro nin kamida uu gaari karo ma jiro laana suxbada inaad nabi maxamed la saaxiibto yaa wax loo dhiga lahayn ومع ذلك نبي عمر وحكيري ninkaasi ciidanka gurmadka Yamanka imaan doonu la socdaa qabiilka qaran buu ka dhashay baras buu qabi jiro uu ka bogsooday hal meel oo yar baa ku soo hadhay hooyuu leeyahay oo baari uu yahay ninkaasi hadduu ku dhaarto walla inuu waxaasi dhici ilaahay dhaartiisa waa yeelayaa hadduu dhaarto ilaahay ku dhaarto ilaahay waa u baarinimo sameynaya booska uu ilaahay ka joogiyo maqaamka ilaahay agtiisa uu ka joogo umarow haddaad ninka la kulanto oo ilaahayba ku gaadhsiiyey inaad kulantaan weydiiso inuu ilaahay dambi dhaaf kuu weydiiyo umar wuxuu ahaan jiray marka ciidan kastoo ka yimaada Yaman wuxuu weydiin jiray Uways meedin la socdaa maya war Uways meedin la socdaa maya ilaa uu markii dambe helay war Uways ma tahay ha baras ma qabi jirtay ma ka bogsootay meel yar mooyee ha hooyo ma leedahay baari ma tahay ha nabi maxamed baan maqlay sallallahu alayhi wasallam oo sheegaya oo dhahaya haddaad la kulanto ilaahay dambi dhaaf ku weydiiyee niyahu ilaahay dambi dhaaf ii weydiiyee Uways Umar buu ilaahay dambi dhaaf u weydiiyey Allah ku dambi dhaaf u weydiiyey Umar wuxuu yidhi xageed u socotaa Kuufa u socdaa buu ninka gudoomiyaha Kuufa iiga ah waraaq ma kuugu qoraa si uu wax kuu siiyo oo kuu kaalmeeyo maya buu dadkayga inaan isaga dhex jiraan jecelahay idaa uu tagay xajkii markii la gaaray sanad dambe ayaa ninba Kuufa ka yimid qabiilkii Uways ka dhashay Umar wuu warsado wuxuu ku yiri war nin Uways nin la dhihi jiray xagee ku dambeey bal iga waran wuxuu yiri ninkaasi Kuufa degan yahay xalkiisa ka waran guri tacbaanana uu ku jira alaab yarna oo ishu qabanaynin waa u taala oo fiirsi ninkii isaga ah Umar wuxuu u sheegay xadiidkii nabiga wuxuuna ku yiri haddaad la kulanto weydiiso inuu ilaahay dambi dhaaf ku weydiiyo ninkii waa laabtay Uways buu u tagay wuxuu ku yiri warniyow ilaahay dambi dhaaf ii weydii Uways wuxuu ku yiri war adiga safar cusub ka yimid oo safarahe safarkana ducadiisa waa la aqbalay adigu ilaahay dambi dhaaf ii weydii war ma ilaahay dambi dhaaf ii weydii war ma adigu ii weydii waa la isku celcelay markii dambe Uways waa fahmay wuxuu ku yiri ma Umar baad la kulantay ma Umar baad soo aragtay haa buu yiri markaasuu yiri ilaahay ku dambi dhaaf warkii Uways waa faafay magaaladii Kuufa galay dadkii baa soo saftay Uways ilaahay dambi dhaaf noo weydii Uways ilaahay dambi dhaaf noo weydii Uways warkiisii markuu faafay oo caan baxay oo uu halis galay ayuu dhuuntay maalin uu wajigiisa u dhaqaaqay meel uu galayna lama hayo maanta haddaan ahaan lahayn waxay kula tahay wali ilaahay oo cumaamad duubta oo meel camirta oo ummaddu ku soo hagaagto oo wakiil la samaysta oo loo soo jihaysto ayuu noqon lahaa لكن إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي هذا أوغان لهيت شهرة إيعام بحدو آفدا أيلاده هي ابتلاها كتشرة هذا أوغان لهيت انت الشهرة ودين إلهي بعد أبري لهيت وعام بحضي أذون وضوم لهيت لو أبر على الله لو أقسم على الله لأبره سيداس درادت إسقاط قاددا هي أمان شعيلك هي كرسياليدا هي واحد أنا حيننا إسكتلكتو
waxaad ku waayaysaa ilaahay jannadiisa تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وحكم إذا عذر كاسي علامات كاللغو قرطو إنو الروح جعلاضو إنو مروا البكرسي صارناضو إنو مدح أحاضو إنو مدحوين النقضو إنو وزير نقضو إنو برلمان نقضو إنو قدوميان نقضو إنو حل هيو أساقو أون درين سنين حلك إيا مسؤولية خطرتا إلاده haddaabad is aragtaba inaad jeceshahay mar walba inaad madax noqoto cudurkaasaa ku haya calaamaadkiisa waxaa ka mid ah meelaha la isugu yimaado dadku fadhiyaan mar walba inaad jeclaato in adiga lagu dhagaysto tasaddur almajaalis wad adigu hadasho wad adigu muxuu ahaay dadku ay ku maqlaan oo aadan ogolayn in lagaa garab hadlo ama cid kale hadasho waa miduu nabigu ku tilmaamay sal allahu alayhi wasallam almadaabix محاربتا يعني وحوي وحا كوجو جيرا cudurkaas shuhrada iyo iskuryeelida waxa kamida calaamaadka cudurka inuu ku hayo lagu garto inaad jeceshahay markaad soo gasho in lagu istaago sida madaxda iyo ama madax dhaqan ha ahaado ama madax kale oo siyaasadeed ha ahaado ninka madaxdii wuxuu jecel yahay hadduu soo galo dadku inay istaagaan haddaad istaagi weydana waaba xanaaqayaaba war maxaad la xanaaqi nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh khayru nnaasi wa sayidi albashar aadamaha kii ugu khayr badnaa sayidkoodana ahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh saxaabadiisu mayna u istaagi jirin hadduu soo galo laguma ixtiraami jirin lagumana weynayn jirin in la istaago bal waa u diiday nabigu sala allahu calayh waali wasalam marka in lagu istaagaa jeceshahay nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ciddii jecel inay dadku u istaagaan jecel oo uu farax gelinayo naarta meeshuu ka geli lahaa haw diyaar garooba ha diyaarsaduu nabigu yidhi sal alla alay wasalam waxaa ka mid a inaad jeceshahay in layska kaa ammaano alqaab iyo magacyo iyo muxuu ahay naanaysyo in layska kaa ammaano lagu hadal hayaad jeceshahay واتو النبي كوشاكي صلى الله عليه وآله وسلم إني تهي قورع يا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا مررك قاركود إساقوا سفيهم قيمة لهين يوجعليها وحونا كتاني لغو أمانه مررك قاركود وحوسان أهين بالغو أمانه يا إساقوا الليتا يوربا إنو النقض لغو أمانه ذاتك كأوفي عنه هذا درجة إن تعيشها إن لجوا هذا الحياة لجوا أمانة لجوا وضوء إن تعيشها حضر كيباك وهي وحكم ذا إن أدتك وحن شريعة أقولين إن لجوا خلافه أتكجر مرته وأد سيعد عن بعض مسائل معنوين أو كفردين ومحوها خلاف كود أما واهرب الحسميي وحي علماء كتل من طفولياتك أما الرخصك أما وحن معنوي كان إن خلاف كيسو إن أمضى كوجرب مرته سلقو برتو ليراد وكا هبل شيخ هبل وكا وعالم علماء دي يربو جيسك كرفتي وحلوسو يستاجد هرماها نول بووت شيري علشان وحوي مسائشة خلافك كو اوغيساي wax macna leh ma aha laakiin cudurkiiba ku galo hal lagu barto waxa kamida cudurkaasi calaamaadkiisa waxa kamida in ruux magac loo la yaqaano uu iska laalaadiyo علشان si loo barto تعلق بمشهور حتى تشتهر mid la yaqaano caana iska laalaadi adigana hal lagu bartee si lagu barto dadku ku bartaan waa kii hebel radiyay waa kii hebel ka daba qaatay waa kii hebel ka adkaaday علشان intaas doonaysa in lagu barto bulshadu ku barato maanta waad aragteen si magac loo raadiyo hatta xumaanta ugu xun baa lagu raadinaya maxaa daadiyay dhalinyaradeenni iyo dumarkeenni iyo raggeeniba social media daadiyay oo aan ka ahayn magac raadin iyo hal lagu barto safaaha
qashin buu ruuxu ka hadlaya waxaan macno lahayn buu ka hadlaya waa caan baxaya calashaani waxa weeye hal lagu barto war hal lagu barto waa lagu rogmaday oo shuhro oo magac yeelo waa lagu rogmaday oo waa irid halisoo shaydaan bini aadamka ka soo galo oo culimadii baa ku rogmatay caamo warkeeda iska badaaya talabatul cilmigii baa ku baaba'ay meel halisaad marka gelaysaan oo raadinaysaan allah tabaaraka wa tacaala adoonkiisa wuxuu jecel yahay xataa hadduu qiimo leeyahay inuu hoos isu dhigo ilaahina sunnadiisu waxa weeyaan ruuxii kor isu qaada dhulkuu dhigaa ruuxii hoos isu dhigo oo tawaaducana rabbi kor buu u qaadaa xadiidkaasi wuxuu ku imaanayaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu lahaan jiray qaalin uu fuulo oo geel ah qaalinka nebigu raaci jiray weligii lagama orod badinin nin acraabi oo reebaadiye ayaa la yimid qaalinkii nebigee weligii aan laga badinin buu qaalinkii acraabigu ka hormaroo ka badiyey saxaabadii waa ka xumaadeen waa ka murgeen war seebaa qaalinkii nebigee hebel ha looga hormaray markaasuu nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam shay kor isu qaada ma jiro ilaa ilaahay dhulkuu dhigaa soo maaragti tawaadaca qadarkaaga garo hoos isu dhig dadkaaga ka mid noqo ha ismuumuujinin ha isqaadqaadin haddii ilaahay wanaag kula rabo magac in lagu yeelo aad qiimo ku yeelanayso xagga ilaahay ka raadisaan soo hormarinay laakiin addoommadu waxba ma hayaane ha kullu go'in salluu wasallimuu calaa khaatami alanbiyaa'i waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waaltaabiciin wataabicihim waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi ddiin allahuma inna nas'aluka alhuda waaltuqa waalcafaafa waalghina rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب